Ka sheekee qoyskaaga. Ka sheekee qoyskaaga. Aamina qoyskeeda. Aamina qoyskeeda. Magacaygu waa Aamina. Waxaan leeyahay qoys yar oo qurux badan. Qoyskaygu waxa uu ka kooban yahay aniga, ninkayga, iyo 3 carruur ah. Waxaan ku noolnahay nolol deggan oo farxad leh. Magacaygu waa Aamina. Waxaan leeyahay qoys yar oo qurux badan. Qoyskaygu waxa uu ka kooban yahay aniga, ninkayga, iyo 3 carruur ah. Waxaan ku noolnahay nolol deggan oo farxad leh. Ninkayga magaciisu waa Axmed. Wuxuu ka shaqeeyaa shirkad weyn oo dhismaha ah. Waa injineer. Wuxuu aad u jecel yahay shaqadiisa. Axmed waa qof caqli badan oo shaqadiisa ku dadaala. Ninkaygu magaciisu waa Axmed. Wuxuu ka shaqeeyaa shirkad weyn oo dhismaha ah. Waa injineer. Wuxuu aad u jecel yahay shaqadiisa. Axmed waa qof caqli badan oo shaqadiisa ku dadaala. Gabadhayda weyn magaceedu waa Safiya. Waa 29 jir. Waxay ka shaqaysaa isbitaal sida kalkaaliso caafimaad. Safiya waa qof xanaaneyn badan oo dadka kale ka caawisa caafimaadka. Waxay jeceshahay in ay akhriso buugaagta caafimaadka. Gabadhayda weyn magaceedu waa Sofiya. Waa 29 jir. Waxay ka shaqaysaa isbitaal sida kalkaaliso caafimaad. Safiya waa qof xanaaneyn badan oo dadka kale ka caawisa caafimaadka. Waxayna jeceshahay in ay akhriso buugaagta caafimaadka. Gabadhayda labaad magaceedu waa Layla. Waxay jirtaa 18 sano. Layla waxay ku jirtaa sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga sare. Waxay ku fikiraysaa inay jaamacad gasho oo ay barato xisaabta ama dhaye. Layla
waa qof xiisaysa waxbarashada. Sidoo kale waxay jeceshahay ciyaaraha fudud iyo bisadaha. Waxay leedahay bisad madow oo qurux badan. Gabadhayda labaad magaceedu waa Layla. Waxay jirtaa 18 sano. Layla waxay ku jirtaa sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga sare. Waxay ku fikiraysaa inay jaamacad gasho oo ay barato xisaabta ama dhaye. Layla waa qof xiisaysa waxbarashada. Sidoo kale waxay jeceshahay ciyaaraha fudud iyo bisadaha. Waxay leedahay bisad madow oo qurux badan. Wiilkayga magaciisu waa Yuusuf. Yuusuf wuxuu bishan buuxinayaa 9 sano. Yuusuf waa arday dugsiga hoose dhigta. Wuxuu aad u jecel yahay ciyaaraha, gaar ahaan kubadda cagta. Mararka qaar wuxuu naga caawiyaa hawsha guriga sida weelxalka. Aad buu noo tixgeliyaa. Wiilkayga magaciisu waa Yuusuf. Yuusuf wuxuu bishan buuxinayaa 9 sano. Yuusuf waa arday dugsiga hoose dhigta. Wuxuu aad u jecel yahay ciyaaraha, gaar ahaan kubadda cagta. Mararka qaar wuxuu naga caawiyaa hawsha guriga sida weelxalka. Aad buu noo tixgeliyaa. Sawirkan waa sawir aan aad u jeclahay. Wiilka sawirka ku jira waa walaalkay iga weyn oo la yiraahdo Axmed. Gabadha dhexdeena ku jirta waa Maryan. Maryan waa walaashay iga yar. Waxaa iigu dambaysay labadooda muddo aad u dheer, oo aad baan u tabayaa. Sawirkan waa sawir aan aad u jeclahay. Wiilka sawirka ku jira waa walaalkay iga weyn oo la yiraahdo Axmed. Gabadha dhexdeena ku jirta waa Maryan. Maryan waa walaashay iga yar. Waxaa iigu dambaysay labadooda muddo aad u dheer, oo aad baan u tabayaa. Kuwani waa hooyaday Sahra iyo aabbahay Maxamed. Waa sawir waa hore la qaaday. Waxay degan yihiin caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Muqdisho waa magaalo aad u qurux badan. Waan u xiisay waalidkay iyo dalkayga hooyo.
Kuwani waa hooyaday Sahra iyo aabbahay Maxamed. Waa sawir waa hore la qaaday. Waxay degan yihiin caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Muqdisho waa magaalo aad u qurux badan. Waan u xiisay waalidkay iyo dalkayga hooyo. Qoys, qoys. Ninkeeda, ninkeeda. Carruur, carruur. Gabadh, gabadh. Wiil, wiil. Injineer, injineer. Kalkaaliso caafimaad, kalkaaliso caafimaad. Dugsiga sare, dugsiga sare. Jaamacad, jaamacad. Kubadda cagta, kubadda cagta. Akhriso, akhriso. Buugaag, buugaag. Weydiimo, weydiimo. Imise qof ayuu ka kooban yahay qoyska Aamina? Axmed muxuu ka shaqeeyaa? Safiya maxay ka shaqaysaa? Layla waa imise jir maxayse baranaysaa? Yuusuf muxuu xiiseeyaa? Imise qof ayuu ka kooban yahay qoyska Aamina? Axmed muxuu ka shaqeeyaa? Safiya maxay ka shaqaysaa? Layla waa imise jir maxayse baranaysaa? Yuusuf muxuu xiiseeyaa? Wixii fariin ah noogu soo gudbiya Gmail-ka halkan ku qoran ee ah waxbarasho.org@gmail.com. Haddii aad doonaysaan in aad nagala socotaan YouTube-ka, waxaad ku qortaan ood nagu raadisaan magaca waxbarasho.org. Kadibna subscribe dhaha haddii aad doonaysaan in aad mar walba heshaan fariimaha annaga naga yimaada ama fiidiyowyada aan soo gelino.